mas-uuliyiinta degmada berbera oo hogaaminayo gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera mudane cabdishakuur maxamuud xasan cidin isla markaana uu helinayo gudoomiyaha gobolka saaxil injineer axmed cismaan xasan ayaa howlo shaqo ugu baxay deegaanka Tuulada Dhibiijo oo ka tirsan gobolka saaxil waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay mas'uuliyiintaasi waayeelka iyo waxgaradka deegaankaasi soo dhaweyn iyo kurgalka xaaladda deegaankaasi kadib ayaa waxa ay mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada berbera ay halkaasi ka dhagax dhigeen balaadhinta xarun caafimaad oo deegaankaasi ku taala oo hore u koobnayd waxaana uga mahadnaqay tallaabada lagu balaadhinayo xaruntaasi caafimaad waayeelka iyo waxgaradka deegaankaasi ku dhaqan rahmaan rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin marka hore ilaahay baa mahad leh muslimiin ayaynu nahay marka xigtana waxaynu mahad celinaynaa madaxdii gobolkeena oo inoo timi gudoomiyii gobolka maayarkii xoghayihii xildhibaanadii hadii qaybtii caafimaadka intii oo ina soo booqatay waxaan leenahay ku soo dhawaada magaaladiinii hadii Tuulada Dhibiijo marka xigta waxa mahad labaada waxa weeye madax horeba wayna soo mari jirtay sidan ay noogu soo noqnoqonayaan kuwa noogu soo noqnoqdo bayna arki jirin waxa weeyaan taasi waxayna tusaysaa qofku hadduu si joogto ah kula soo xidhiidho waxayna tusaysaa kalgacalka iyo horumarinta iyo haddii alla ka dhigayo waxqabadka dhabta ah ee ay ka run sheegayaan ayay taasina na tusaysaa oo ay u tahay ay cashar u tahay waxa weeyaan alxamdulillah waxa weeye waa rugtii caafimaadka ayay noo dhagax dhigeen noo balaadhinayaan haddii alla ka dhigayo waxqabad horena way soo qabteen mid kale oo ballaaranna waanu ka sii rajaynaynaa insha Allah ta'ala waxaan leenahay wixii dambena Allah idin la qabto annaguna alxamdulillah rabbil caalamiin haweeye adii abo xugmaayo adaan nahay reer Tuulada Dhibiijo maanta waxaanu noo yimi oo nala jooga halkan gudoomiyihii gobolka saaxil iyo maayarkii iyo xoghayihii waxaanay noo keeneen oo halka kan hadii abo xugmayo noo dhagax dhigayaan maanta goobtii caafimaadka hadii abo xugmayo oo naloo balaadhinayo inkasta baan looga dhigo kow annagu markaa waxa weeye waanu ugu mahadnaqaynaa deeqda ay noo keeneen iyo maatika ay noo yimaadeen iyo madaxdayadii oo hadii abo xugmayo maanta na soo booqatay waanu soo dhaweynaynaa waana u mahadnaqaynaa goob lagu dhalo iyo goob hadii abo xugmayo caafimaad yaallo hadii abo xugmayo meeshii dee aanay jirin dee waa baaba waa xoolaha ayay la mid tahay golaha ku dhalay kama duwanadi marka waxa weeye aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hadii abo xugmayo waana ku soo dhaweynaynaa rahiim iyada horta marka hore ilaahay baa mahad leh waxa kale oo mahad leh maadaama mas'uuliyiintii gobolka ay noo yimaadeen taana aad baan ugu mahadnaqaynaa waxqabadka ay maanta annaga noo wadaan in yaroo hore aan ku raynay marka horeba way noo dhisnayd laakiin ballaadhin in la noo ballaadhiyo oo la noo hagaajiyo ayaa waxqabadkeedii dambe maanta maayirku iyo u yimaadeen inay dhagax dhigaan way ku mahadsan waanaan ugu mahadnaqaynaa si aad iyo aada waxaanaanu kaloo rajaynaynaa kolley iyada horta baahi lama waayo laakiin waxyaabaha aanu tabaynana sidaa ay durba noogu dhaqdhaqsanayaan noogu soo noqnoqonayaan in yana lanoo qaban doono uun taasaanu iyadana rajana intaas baanu aad ugu qabnaa waxaanu leenahay haddaa aad tihiin guddoomiyaha iyo maayirka iyo xoghayaha iyo madaxda mas-uuliyiinta dhammaan noo timiba aad iyo aad baanu idinku hambalyaynaa idinku mahadnaqaynaa waxqabadna wixii aad noo qabato mooye waxa kale ay yaryar ee baahiyaha aanu tabaynana waxaanu ku rajo weynahay sidaa ina iyadana ay kuwaasu noogu daba jiraanoo lanoo qaban doono waxaan aad u farxada maanta in xaruntii la odhan jiray barta caafimaad ahayd ee Dhibiijo run ahaantii maanta laynoo dhagax dhigi doono oo laga dhigi doono xarun health center ama xarunta labaad taasoo fulin doonta adeega hooyada iyo dhallaanka ama markii hore xaruntu ma ilaahan jirin meel lagu dhalo laakiin iminka waxay soo kordhi doona servicekii umulaha taas oo fududaynaysa in aad kaga raysataan hooyadii halkaa laga qaadaya ambalaaska ee lagu geynayay maxaa berbera oo run ahaantii tacab badani ku bixi jiray waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa
mar walba waxa weeye gudoomiyaha degmada berbera iyo xogayaha dadaalka faraha badan leh ee ugu jiraan kor u qaadista xarumaha caafimaadka iyo balaadhinta dhammaantii caafimaadka guudba ee gobolka Saaxil sanadkii 2019 laba xarumood oo la mid ah levelkan ama bar caafimaad la yiraahdo oo xagaliya la furuuga labadaba waxa weeye kor ay u qaadeen iyaga fuliyay mashruuca maantana waxa weeye waa lagu dhalaa waana ay shaqeeyaan insha Allah billahi kariim inta hadlay ee aynu tabaynana waxaanu rajaynaynaa inay inoo fuliyaan insha Allah sidoo kale gudoomiyaha golaha deegaanka iyo xogayaha maamulka dawladda hoose halkaasi ka hadlay ayaa iyaguna faahfaahin dheer ka bixiyay ahmiyadda uu leedahay balaadhinta xaruntan caafimaad isla markaana mashruucani uu ka mid yahay mashaariicda 2020ka ay maamulka golaha deegaanka ee degmada Berbera ay ka hirgelinayaan deegaamada laga soo doorto xildhibaanada golaha deegaanka ee Berbera. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات الله والسلام عليه إلهي بما هذا مركه هراء isku keen kulansiiyay reer Tuulada Dhibiijo nabad isugu nimaadno waynu soogeyn dhamaadkii sanadkii hore ee 2019 ayuu halkan isugu nimi iyadoo maamulka gobolka iyo degmadu ay kormeer gobolka oo dhan ku soo sameeyeen kormeerkaas oo ahaa dhamaystirkii mashaariicda 2019 iyo korgalka 2020 wixii baahiye jira wada fadhigeeni waxa ka soo baxay baahiye ay sheegateen inay qaybta koowaad ka ahayd ama qaybta ugu horeysa maadaama magaalo dad badan ay tahay ilaamigana ka fog in la ballaariyo MCA maxay tahay rugtii caafimaad oo aad iyo aad uga cabateen waxa kale iyana jirtay inaynu wadada banayno qodobada ugu waaweyn ba kamid ahaayeen saldhig ba ku jiray laakiin baahida koowaad waxay ahayd ballaarinta maxay tahay rugta caafimaadka maadaama tiro badan oo caruur iyo hooyooyin magaalada ku nool yihiin magaalo weyn oo dad badan ay tahay maamulka gobolka iyo degmadu iyagoo taa ka duulaya waxay culayskii koowaad saareen wadadii waa la baneeyay intii itaalkeena ahayd wixii dambana waa isugu soo noqonaynaa iyada cid balameynaan sugin culayska labaadna wuxuu ahaa inaan balaarno MCH-ka alxamdulillah rabbil caalamiin xildhibaanada golaha deegaanka waxaan uga mahadnaqaynaa in markaan u soo bandhignay ay ku dareen mashaariicda 2020ka maamul daadejinta in la ballaariyo maxay tahay lagana dhigo MCH referral oo sida istawa ku-xigeenka caafimaadku uu sheegay wax weyn ka tari doono runtii in shaqaale badan oo aqoon kuwan jooga ka badanna la keeni doono yahuudiin marka hore Ilaahay baa mahad subhanahu wa ta'ala marka labaad maanta waxaan u soconaa inaanu ballaarin ku sameeyno aanu dhagax dhigno MCH-kii lixaad ee degmadu yeelato waa MCH-kii lixaad weey marka la sugayna baraha caafimaadka waa goobtii 15aad ee dawladda hoose ay maamusho halkan in badan waxa arki jirtay in hay'adii dad cadaan ay yimaadaan suuliyaradii qadaan wax yaradii qabtaan dadka cadaanku iska tago tan waa cashuurtii dadweynaha degmada Berbera laga qaaday ayaa halkan iyadoo soconayso kuugu timi muwaadiniinta reer Berbera cashuurtay bixiyeen ayaa halkan kuugu timi oo caafimaadkii oo joogta ah markii hore adeega caafimaadku wuxuu ahaa waqti yar oo kooban laakiin kan wuxuu noqonayaa 24 saacadoodba lama yaqaan hooyadu goorta umulaysa lama yaqaan waqti ma laha ilmahan goorta xanuunsanaya lama yaqaan 24 saacadood bay heegan buu ahaanaya dawaduna heegan bay ku ahaanaysaa dhaqaatiirtuna heegan bay ku ahaanayaan halkay laba qof oo qori ka shaqeyn jireen 10 qof ka shaqeyn doona insha Allah taala marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baryeena inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo sugo oo waxa aynu qabsanayna aad dareentaan baahidii waa dareenteena ilaalintiina inaad daryeelataan oo ilaalisaan oo qofkii dhibaato ku hayaba aad idinkoon cid u sheegin aad ka qabataan talaabo ka qaadaan wixii ka cuslaadana noo soo sheegtaan wax qabadka iyo horumarka gobolka Saaxil ee barsaabku nugu hagayo ee mar walba goobjoog barsaabku yahay ee siyaasadda heer gobol lagu shaqeynayo ee siyaasadda heer degmo lagu shaqeynayo intaba waxaan diyaar u nahay dadka gobolkan ku nool gaar ahaan degmada Berbera ku nool inay helaan nolol wanaagsan oo caafimaad qabta oo horumar iyo mustaqbal leh gudoomiyaha gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan Xasan oo ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay ayaa dadka deegaankaasi uga mahadnaqay soo dhaweynta ay u sameeyeen sidoo kalena kula dardaarmay inay kala shaqeeyaan nabadgelyada gobolka isla markaana ay ilaashadaan goobtaasi caafimaad ee balaadhinta loogu sameeyay aad iyo aad baad mahadsantihiin sida soo dhaweynta iyo shucuurta idinka muuqata Tuulada Dhibiijo
halkan waxaa bishii 10aad baa isku keen dambaysay maalintaasoo aynu baahiyaha sida laga wada dhawaajiyey gobolka dhammaantii aynu maraynay baahiyuhu waxay u kala horreynayaan kolba sida wax loo qaban karo in loo raadiyo oo cashuurta dadka laga qaado bal maxay ku filaan kartaa baahiyuhu siday kala yihiin loo si kala diyaariyo sidaa laydiin sheegay ama aynu maalintii isla wada ogeyn baahida ugu daran waxay ahayd caafimaadka iyo booliiska in saldhig booliis la helo waxaan marka hore idinku hambalyaynayaa horta xagga booliiska haddaan ku horreeyo dhammaanteen wada booliis baynu nahay waxaynu ku caanamaali jirnay marka horeba dhaqankeenna fiican odaytinimada iyo maxaanku idhaahdaa dhallinyarta iyo odayaasha iyo sida wada jirka ee kolka raba xiriirkeenna aynu iskugu hagaynay taa weli halkan dhibaata igama soo gaadhin oo wax maxaanku idhahdaa nabadgelyadarro ku saabsan oo naga kii soo gaadha ma jirto sharaftaa waxala waa idinka aad iyo aad baan idinku hambalyaynaa meesha aanay dhibaata naga soo gaadhin waxaannu jecelnahay markiiba iyadana in la gaadhsiiyo horumarrada ay ka qayb qaataan qolana mar walba waxa naga soo yeedhaa in dhibaata naga soo yeedhiso kolba waad ku rafaadaysaa yaa dadna waa iyagu dad xallisanaya marka idinkoo ilaahayna kaashaday hawl fiican baad qabateena khayr laydin siyaanu leenahay taabuleyskana waan ka daba tegaynaa waan wadaynaa waa hawl inoo taagan waxyaabahan iska codsannay rug boolis in la helo aynu codsigiinii hore ku jirtay codsigaasi weli wuu inoo taagnaanayaa waxaynu ku dadaali doonnaa mustaqbalkana bal sidaynu u heli lahayn halkaa loo heli lahaa caafimaadka halkaa laga kordhiyey wuxuu u baahan yahay sidaa loo soo sheegay weeyaanoo wax badan buu u tegayaa deegaankan iyo deegaanno kale oo ku dhow ayaa laga yaabaa halkan inay u noqoto meel hooyada iyo dhallaanka lagu daaweeyo ay u noqoto oo meelo kale looga soo gudbin karaba maxaanku dhahdaay oo u dhowdhow waxay u baahan tahay idinkuna dadaalka marka saa loo muujinayo idinkuna qaybtiinna inaad qaadataan qaybtiinna waxaad ku qaadanaysaan waa inaad arday keentaan arday badan waa in la helo arday badan in la helo oo iskuulku uu kordho oo qaybo kale lagu sii daro ayaa loo baahan yahay maanta haddii la idhaahdo labadii galaas way buuxaan kuwaasina cadeedday fadhiyaan dee waxaa la odhan lahaa ku cadeedda fadhiyana iskuulladoodii iyagana ha lagu daro meel looma dhaafeen waxaa laydinka rabaa taa in ardaynaad soo kordhisaan nadaafaddana la ilaashado magaalada lafteeda dee yaro banneeyo oo idinkuna oo waxa weeye baljidad iyo waxtood yaro samaystaan habaysataan idinkuna qaybihiinna qabta intaad qaban kartaan maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star t v magaalada berbera